mahadsanid Kowsar. ruushka ayaa joojiyay gabi ahaanba gaaska uu siin jiray Yurub. Moscow waxa ay sheegtay in hawsha dayactirka ee dhuunta gaaska qaada ay la mid tahay in Nord Stream 1 uusan gaas mari doonin ilaa Sabtida. Gaaska dhuuntaasi mara ayaa horeba loo yareeyay Jarmalka oo aad ugu tiirsan gaaskaasna waxa uu sheegay in saddexdaas maalmood uu isdabari karo. Maamulayaashu waxa ay sheegeen in aan la hubin in gaaska dib loo soo dayn doono. Qiimaha gaaska ayaa sare u kacay tan iyo markii madaxweyne Putin uu ku duulay Ukraine, taasi oo dhalisay sicir bararkii ugu sareeyay muddo 10 sano ah. koox ka socota hay'adda qaramada midooba u qaabilsan nukliyeerka ayaa gaaray magaalada Zaporozhye ee koonfurta dalkaasi Ukraine si ay u soo kormeeraan hawlaha ka socda warshadda nukliyeerka. agagaarka warshadda Zaporozhye ayaa si isdaba joog ah loo duqeeyay toddobaadyadii la soo dhaafay, taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo musiibo nukliyeer ah. madaxa hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada Rafael Grossi ayaa sheegay inuu doonayo inuu halkaasi ka sameeyo howlgal joogto ah. macadda goorta Mr. Grossi iyo kooxdiisa ay awoodi doonaan in ay bilaabaan kormeerkooda. warbaahinta dawladda Ruushka ayaana sheegaysa in ay bilaabi doonaan maalinimada Khamiista oo bari ah. qaramada midooba ayaa sheegtay inay qorsheynayso in ay soo saarto warbixin la wada sugayay gelinkii dambe ee maanta, taasi oo ku saabsan eedeymaha la xiriira xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka ee Shiinuhu ka geystay gobolka Xinjiang. waxay imaan doontaa maalinta ugu dambaysa ee xafiiska Michelle Bachelet oo hadda ah wakiilka qaramada midooba ee xuquuqul aadanaha. waxay ballan qaaday in ay sii dayn doonto warbixinta ka hor inta aysan xilka ka degin, balse waxaa cadaadis ku saaray Shiinaha in uu qariyo Arbacadii. afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa mar kale ku booriyay in aysan daabicin dokumentiyada. warbixinta waxa ay eegaysaa eedeymaha xadgudubyada ka dhanka ah qoomiyadaha kale ee laga tirada badan yahay ee Xinjiang. afayeenka Zhu Lijin oo ka hadlay arrintaasi ayaa waxa uu yiri waxaan si cad u cambaareynaa xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee soo saara ee ku saabsan gobolka Xinjiang. warbixintan waa mid ay sameeyeen dalalka Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka. waxaanu aaminsanahay in madaxda sarsare ee hay'addu ay go'aan fiican qaadan doonaan. Amnesty International ayaa sheegtay in qaxootiga Afghanistan ay isku dayaya in ay u gudbaan Iran amaba Turkiga ay si joogto ah u toogtaan ciidamada xuduudda tan iyo markii Taliban ay xukunka la wareegtay sanadkii hore. warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda xuquuqul insaanka ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ee Iran ay dileen 10 qof oo reer Afghanistan ah iyaga oo mararka qaar rasaas ku ridayay baabuur la soo buuxiyay. 35 ka mid ah qaxootiga Afghanistan ee Amnesty ay wareysatay ee isku dayaya in ay ka gudbaan Turkiga. in ka badan kala bar ayaa sheegay in ay rasaas ku fureen askarta Turkiga. Iran iyo Turkiga midkoodna ma aqoonsanin dawladda Taliban, laakiin labaduba waxa ay musaafiriyeen kumanaan qaxooti Afghanistan ah 12 bilood ee ugu dambeysay. Vladimir Putin ayaa ka tacsiyay geeridii hogaamiyihii ugu dambeeyay ee midowgii Soviet Mikhail Gorbachev isagoo oo sheegay in uu saameyn weyn ku lahaa taariikhda adduunka. Mr. Gorbachev oo gacan ka geystay in si nabad ah lagu soo afjaro dagaalkii qaboobaa ayaa dhintay Talaadadii. Mr. Putin ayaa waqtigiisa inta badan ku qaatay madaxweynaha Ruushka sidii uu bedeli lahaa qaybo ka mid ah dhaxalkiisa. Angela Merkel ayaa sheegtay in tusaale loo soo qaadan doono sidii hal nin uu adduunka ugu bedeli karo mid wanaagsan. Henry Kissinger oo ah xogayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka intii u dhaxaysay 1973 ilaa 1977 xilligii uu socday dagaalkii qaboobaa ayaa BBC-da u sheegay in Mr. Gorbachev uu ahaa nin guulo badan gaaray. dadka ku nool bariga Yurub iyo dadka Jarmalka iyo ugu dambeyn dadka Ruushka waxa uu ku leeyahay abaal weyn oo ah inuu ku dhiiraday inuu dibadda ula soo baxo fikradahaas gobonimo doonka ah.
maxkamadda sare ee dalkani kenya ayaa bilowday dhagaysiga dacwad ka dhan ah madaxweynaha cusub ee kenya william ruto. qareenada u doodaya ninka la tartamaya hogaamiyaha mucaaradka ah Raila Odinga ayaa ku doodaya in ay jiraan dhibaatooyin la xiriira tirinta codadka iyo hanaanka doorashada. qareenada u doodaya madaxweynaha la doortay iyo guddiga doorashada Kenya ayaa sidoo kale marka dambe wajihi doona 7 garsoore. go'aan ayaa la filayaa Isniinta soo socda September 5. Mr. Ruto ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dhawaan dhacday isagoo oo helay in ka badan 50% codadkii la dhiibtay. waxaa jira fowdo iyo jahwareer ka dhacay maalintii lagu dhawaaqayay natiijada. qaar ka mid ah guddiga doorashada ayaana sheegay in aysan ku raacsanayn tirinta natiijada ama codadkii ugu dambeeyay. warkiina waa naga inta aan dib idinkugu celiyo Kawsar.